dadka Iiraan ayaa sheegtay in si adag looga xanibay inay galaan email-adooda iyo baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyay. kala go'an ayaa u muuqda mid soo noqnoqonaya waxaana uu saameeyay in si ammaana loo galo internetka. wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Iiraan ayaa beeniyay in arrintaasi ay jirto. Amazon waxay sahminaysaa qaabab cusub oo ay u shaqayso. website-kan ganacsiga ayaa raadinaya qaab uu ku horumariyo qaabka caadiga ah ee online-ka uu wax ugu qaybiyo. Talaabadan ayaa Amazon waxay ka dhigaysaa adeegga fiidiyoga ee ugu dambeeya digitalka inuu ku qaybiyo si rasmi ah. Netflix, YouTube iyo Hulu ayaa iyaguna horumarinaya barnaamijyo qaas oo ay ugu talagaleen bogagooda. iPad-ka Apple ayaa dacwad ay uga socotaa waddanka Shiinaha. shirkad Shiineys oo la yidhaahdo Profio ayaa waxay weydiisanaysaa customka in ay mamnuucaan dhoofinta iyo soo dejinta iPad oo ku xadgudbay waxay ku sheegeen inay tahay calaamadda ganacsigooda. haddii codsigan la ogolaado waxay khatar ku tahay ganacsiga guud ee Apple ee Shiinaha oo u ah saldhig muhiim ah oo wax soo saar. annaga dhan waanu wada aragnay waxa taagan tahay daaqadda dukaan waxaadna aragtay kaba aad jeceshahay laakiin dukaanku waa uu xiran yahay maxaad samayn lahayd. haddaba cilmi baarayaasha macad ku yaala Berlin ayaa waxa ay sameeyeen tiknoolajiyada ay dukaamada ku shaqaynayaan 24 saac. farsamadan waxay ka samaysan tahay kaamara duubaysa dhaqdhaqaaqa gacmaha qofkana waxa uu dhex marayaa alaabta daaqadda taale kadibna waxa uu soo saarayaa shayga iyo qiimihiisa isaga oo aan taaban.